nabigu calayhi salaatu wasalaam majliskiisa isagoo maalin fadhiya ayay nimankii muhaajiriintii maka ka soo hijrooday ayaa sare kacoo nabigay ku yiraahdeen nabi allow magaalada maka annagu aan ka imanay ka soo baxnay ma uu zamzam baan ku haysano ma hayn halkan biyuhu waa magaalada madiina ceelashana niman yahuuda inta badan iska haysta lacagan ku iibsanana ma haysano marka ninkii ceelka bi'ru ruuma lahaa ayuu nabigu u tago wuxuu ku yiri asxaabatayda muhaajiriintayda biyaha u fasaxa ka cabaane markaasuu u fasaxi maayo oo anu ceelka yar baan leehayo biyaha yar baan iibiyayo reerkayga ayaa ku biiliya markaa buu nabigu ku yiri bi'nihi bi'aynin fil janna il jannada ku taala ceelkaaga ku bedelo ku iibso markaasuu yiri may ceelkayga yar iska iibin maayo iska kaydaa buu ka yiri Uthman bin Affan radiyallahu anhu oo dhakiyaha oo aqli badna oo inshiisu meel dheer wax ka arkayay oo basiiro ilaahay uu siiyay ayaa hadalkii nabiga qalbigiisa ku dhibcay bi'nihi bi'aynil janna il jannada ku taala ceelka igaga iibso markaa buu ninkii iska diiday ninkii ceelka lahaa Uthman baa ninkii u tago yiri ceelkaaga hadii laga iraado lacag ku iibi ma iibin lahayd hawaan iibin lahaa way gorgortameen markaa waxay ku heshiyeen 30,000 oo dirham Uthman lacagtii buu soo qaado uu dhigay ceelka furihiisa igu soo wareeji buu ka yiri uu ka soo qaatay rasuulkii calayhi salaatu wasalaam buu u keeno wuxuu ku yiri yaa rasuulallah ceelkii bi'ru ruuma haddii aan keeno ishii jannada ku taallay ninka loo ballan qaado iska diiday aniga ma lay ballan qaadaya markaa buu nabigu yiri haa markaa buu ceelka furihiisii waa kan asxaabtaadana waa waqaf uu yahay dhaansadaan buu ceelka hadda tolbiisa waa waqaf hal isticmaalo buu rasuulallah markaa buu nabigu farxay indhaha ayuu nabigu markaa kor u qaado wuxuu yiri Usmaan ilaahu raalli baan ka noqday raalli ka noqo Usmaan maanta laga bilaabo amal dambe haduuna sameynba inta buu jannada ku galay buu rasuulku yiri bi'nihi bi'aynil janna indar garata dadkaas ahaa Soomaali ya misas siyaasi salaadna aad tukanayn baa lagu oran indhar garata weeyaanoo 50 sano soo socda isbedelka geeska Afrika ka faalooday dhageysta idaacad inta la soo fadhiisiyo ya Allah aqliga aakhirada ku tusini waaya aqli ma nolosha dambe aqliga ku jeedin waaya aqli ma aragu haddaad aakhirada ku arki weydo ku xisaabtami weydo arag sax ma janna hadday maqlaan asxaabta rasuulku waxay hayaan halka iska dhigayeen janna marka jannadaas aan soo dhigayna marka soomayno salaadayno sadaqada bixinayno zakada bixinayno waalidka u samafalayno janno nimba nabiga u yimid oo yiri jihad baan rabaa oo inaad jihad baxdaad u timid ha janna doonaysa ha janna doonaya nabi allah wax kale ma doonayo labadaadii waalid ma nool yihiin may hooyaan nool ma iyadoo ka raaliya timiday mise iyadoo safarkaaga aan raali ka ahayn ma iyadoo ooysan ka imiday markaa buu nabigu soo janno uma socotid ha hooyada ku noqon lugteeda qabso halka baad jannada ka gali doontaa adigu yeey ilzam rijlayha thumma aljanna buu nabigu thumma aljanna lugteeda qabso jannada halka baad ka gali taacada ilaahay markaad gudanayso waxaad soo dhigaysaa waa janno macsi markay naftiga shaydaanku kuugu yeedhaan ee shaydaanka iyo naftu ay ku yiraahdaan ilaahay caas oo dambiga samee oo waxa ku dhac markay naftiga shaydaanku ku yiraahdiin waa inaad sor dhigtaa ilaahay cadhadiisa sor dhig inna batsha rabbika la shadiid inna rabbaka labil mirsad ilaahay ku xisaabtin cadhadiisa ka cabsi naftaada marka labadaas la doonaya ilaahay inaan ku caabudno tamacan khawfan wa tamaca cabsi iyo rajo cabsida goorma la rabaa waa intaad caafimaadka haysid ee nolosha haysid ee dhalinyarada aad tahay ee amniga haysatid ilaahay cabsi ku caabud maalintaad heer xanuunsatidna ama xaalad adag ay kugu timaado ilaahay raxmadiisa rajiye markaas oo haquusan oo waxaad tiraahdaa naftaada waxaad ku tiraahdaa rabbigay waa naxariis badane waa deeqsi badane waa kariim weeyaan ilaahay waa kariim kaad la shaqaynayso waa kariim سيدي نكي
xajka u socday mar alle markuu ihraamkii u xidhay ayuu maqlay ayuu yidhi labbayk allaahuma labbayk markaa dushiisaa laga leeyahay laa labbayka walaa sacdayk xajka aad u socoto lagaama aqbalin safarkaa aad u xamaan qaadatayna ilaahay kaa aqbali maayo iska joog hadal baa dusha kale dhawaaq mid isaga gadaashiisa joogaa hadalkii la maqashiiyey kii baa ku yidhi yaa sheekh maxaad ka xajin adigu labbayk allaahuma labbayk markaad tirahdaba jawaabta maad maqlayn markaa wuhi maad maqashay haa waan maqlay ma haddaad maqashay haa haddaan maqlay wuxuu idhi 27 sano ayaan ilaahay gurigiisa u soo qasday mar ali markaan xajka aanu ihraamka soo xidho ee talbiyada soo bilaababa laa labbayka walaa sacdayk baa leeyahay oo waxa dushayda laga leeyahay xajkaaga cimradaada sacigaaga cibaadada aad u socoto ilaahay ka aqbali maayo baa leeyahay ee iska joog baa leeyahay haddaan gurigiisa ka joogo oo socodka aan xaggiisa u dhaqaaqay aan ka joogo xaggee kalo oon tagaa bal ii sheeg buuri adaan tala kaa qaadana bal ii sheeg buu ka yidhi may jirtaa meel kale wuxuu yidhi ama hal lay aqbalo ama yaan lay aqbalin anu ilaahay baan u socdaa xaggiisa buuri meel kale uma socdo ka quusan maayo ilaahay raxmaddiisa waa kariim waa raxiim waa raxmaan waa xaliim waa sataar ceebteenu dhan buu qarinaya maanta dulqaad badane war ma cadaaladda ilaahay baan ku joogna adduunyada baa la yidhi satriga iyo dulqaadka ilaahay baan ku joognaa satr asturkiisa ilaahay baan na asturaya ilaahay baa noo dulqaadanaya laakiin haddii cadaalad la eegi lahaa acmaasha jidhkeenna maanta ka soo fulaysa iyo cisyaanka aan ilaahay caasinayno iyo sida macaasida waddooyinkeenna maqaaxiyaheenna guryaheenna ilaahay loogu caasinayo daqiiqad adduunka inaan ku noolaan xaq uma yeelaneen maanta 27 sanaan maqlayaa buu yidhi oo laygu jawaabaya oo layleeyahay ilaahay xajkaaga kaa aqbali maayo iska joog dee maan joogaa ka joogi maayo waan socdaa buuhi waryaa u yimiday dawaafkii buu bilaabay sacyigii markuu dhammeeyey ayaa dushiisa laga dhawaaqoo la yidhi labbayka wa sacdayk waan ku aqbalnay waan kaa ajiibnay 27kii hore ee xajidayna ilaahay waa kaa aqbalay baa lagu yidhi kii baa la maqashiiyey marka hore maqlaayey markaa buu yidhi sheekh waa lagu aqbalay wuxuu yidhi albaabkiisa mahayna albaab kaloo garaacaynaa ma jirta buu ka yidhi ma quusanayna annagu ilaahay baan haysanaa marka ilaahay raxmaddiisa ka quusan mayno dadkana ka quusin mayno bal ummadda waan tarqiibinaynaa waan u naxariisanaynaa dacwadda ayaan ugu yeedhaynaa dacwadda markaan ummadda ugu yeedhaynana waan u dhibrinaynaa bucithtum muyasiriina walam tubcathuu mucasiriin